dhalinyarada degmada 26 Juun ee xisbiga mucaaradka ee Wadani oo la hadlayay telefishinka Eryal TV ayaa sheegay inay iskaga tageen xisbiga mucaaradka ee Wadani kuna biireen xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waxayna dhalinyaradani isla goobtaasi xisbiga kulmiye ku wareejiyeen xaruntii xisbiga mucaaradka ee Wadani ee degmada 26 Juun ee xaafadda Xawaadle waxayna intaasi raaciyeen in ay ku goobeen xisbiga mucaaradka ee Wadani iyagoo hoosta ka xariiqay inay xisbigaasi uga tageen hal dhawaan ka soo yeeray musharaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Ciro kaasi oo ay sheegeen in aanu hadalkaasi u meeldayin samarkaana ay kaga dareereen taageerayaal badani waxayna dhalinyarada reer Somaliland ugu baaqeen in ay iskaga baxaan xisbiga mucaaradka ee Wadani isla markaana ay ku biiraan xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye waxaana hadaladoodii kamid ahaa anagoo ah dhalinyarta 26 Juun gaar ahaan xaafadda Xawaadle waxaanu cadeynaynaa inaanu ka digarognay xisbiga Wadani una digarognay xisbiga kulmiye sabab badan awgood dadeedu ma ahayn markii hore dan gaara ma ahayn dan kooban ma ahayn dan shakhsiyadeed dan urur ma ahayn danta dhalinyaranimo danta mustaqbalka fog hadhow waxaanu doonayno in dalkan iyo dadkan loo qabtaan nahay inta markii aanu ka weynay ayaaba waxaanu go'aansanay oo si caafimaad qabto u go'aansanay oo si aan caadifadi ku jirin u go'aansanay oo si intellectual oo aqoon-yahanimo ku jirto u go'aansanay in meeshii danta dhalinyarada Soomaaliland aan waxba ugu jirin intaanu ka digarogno meeshaan u aragnay inay dhalinyaro wax u qabanayso waxaan ka cadeynaa in insha Allah bidmillah kariin halka aanu xisbiga Wadani kaga guurnay xisbiga kulmiye ugu guurnay hadii la yiraahdo annagoo cadeynteedu ay tahay iska saarno geesta kale dhalinyaradan ka baxday xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa waxa soo dhaweeyay xildhibaan Xasan Shahar oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo maarayihii hore ee TV qaranka Cabdi Cali Mahdi iyo gudoomiyaha kaabeynka ee gobolka Muqdisho ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye waxaana hadaladoodii kamid ahaa aad waxaan uga mahad celinayaa dhalinyarada caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland Hargeysa ee kala gadisan ee shanta degmo ka kooban ee saaka soo xidhay xafiisyada 32 xafiis ah iyaga oo wadaniya garashadoodii aqligoodina uu siiyay inay u guuraan xisbiga talada haya ee kulmiye ee horumarka iyo waxqabadka waa uga mahad celinaynaa waana soo dhaweynaynaa dhalinyarada reer Hargeysa waa soo dhaweynaynaa ee kala gadisan kelmadda halkudhiga u ah Wadani waxa weeyaan isbedel doon marka aad eegto ragga furintka hore ku jira ee uu xisbiga Wadani soo taxay ilaa baan idinku dhaarshay ma cid ugu cusub baa meesha ku jirta intaasoo ex wasiira ayaa soo maray gudoomiye gobol baa soo maray inta meesha yaacaysa nim aan dalka dambi ka gelin haba yaraatee kuma jirto si kastaba haatee maalmihii u dambeeyay waxa soo badanayay in xisbiga mucaaradka ee Wadani ay iska casilayeen dhalinyaro iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ku kala sugan gobolada iyo degmooyinka dalka Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Eryal TV Hargeysa